madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi oo ka mid ah madaxda tirada badan ee caalamka ee ku sugan magaalada Davos ee dalka Switzerland halkaas oo ka socdo shirka dhaqaalaha dunida ayaa waxa hadal uu ka jeediyay madal camiran oo ay ku sugnaayeen madax badan oo ka kooban siyaasiyiin uu ka mid yahay madaxweynaha Israa'iil wiilka madaxweynaha Trump ee Eric Trump tujaar sharikada waaweyn ee dunida qaarkood hogaamiya iyo hormuud bulsho oo caalamka meelo ka mid ah isaga yimi madaxweyne Cabdiraxmaan ayaa hadal taariikh iyo garnaqsi ku qotoma madasha ka sheegay waxaana uu yiri I want to thank the Davos launch team and all honorable guests, the President of Israel and his wife, Mr. Eric Trump, and all business people and politicians at the table and the corners of the world. habeen wanaagsan dhammaantiin waxaan u mahadnaqayaa kooxda Davos Launch madaxweynaha Israa'iil iyo Mr. Eric Trump iyo dhammaan tujaarta iyo siyaasiyiinta halkan ku sugan sharaf ay tahay inaan joogo madashan iyo miiskan caalamiga ah Somaliland is the newest country in the world. Somaliland waa dal cusub oo waa kii ugu dambeeyay ee ku soo biira dalalka caalamka waxaana taasi ku timi oo aan uga mahadnaqayaa go'aankii geesinimada lahaa ee uu qaatay ra'iisul wasaaraha Israa'iil oo ka garaabay dalabka dawladnimada ay doonaysay Somaliland intiinaan xog ka haynin xaqiiqada Somaliland aan macluumaad idinka siiyo Somaliland waxay xorriyadda ka qaadatay boqortooyada Ingiriiska 1960kii xilligaas Somaliland ay heshay madaxbannaanideeda Soomaaliya xor ma ahayn hase ahaatee 5 maalmood kadib ayay xor noqdeen sidaas awgeed waxaa xaqiiq ah in Somaliland ay ahayd dawladdii dhashay dawladnimadii Soomaaliya Somaliland waxaa go'aankeedu ahaa isla markaasina ay doonaysay riyadii ahayd in la helo Soomaali weyn ama Soomaalida Geeska Afrika oo dhan inay midoobaan oo dawlad quraata ay wada yeeshaan iyadoo aan shuruud lagu xidhin Soomaali weyn haddii aan idiin sharaxo waxay kala ahaayeen 5 qaybood qayb waa Djibouti oo ka mid ahayd Soomaalida weyn ee la baadi goobayo qayb kalena Muqdisho oo ahayd Italian Soomaaliya Somalilandna waxay ahayd British Somaliland iyo qaybaha Soomaalida ama deegaanada Soomaalida ee raacsan dalalka Itoobiya iyo Kenya oo iyaguna qayb ka ahaa Soomaalida weyn ee la doonayay la isu keeno again Somaliland reclaimed its independence on 1991 May. si kastaba ha noqotee mar kale ayay Somaliland waxa ay la soo laabatay madaxbannaanida dawladdeedii 1991kii May iyadoo uu dhacay dagaal sokeeye oo lagu riiqmay oo dawladdii Soomaaliya ay ku xasuuqday 200,000 oo qof oo ka mid ah shacabka Somaliland waxaana xusid mudan in danjiraha Israa'iil u fadhiya qaramada midoobay uu arrintaasi shacabka Somaliland loo geystay uu ka sheegay golaha ammaanka ee qaramada midoobay waanan uga mahad celinayaa safiirka iyo dawladdiisaba inay arrintaasi ka hadleen Somaliland for 34 years has been a stable, democratic, peaceful, ready for business for 34 years. wixii intaasi ka dambeeyay Somaliland danteeda ayay fushatay muddo 34 sanadooda waa meel xasiloon dimuqraadi ah oo nabdoon ganacsiga iyo maalgashigana u furan annagoo taasi ku naaloonay muddada intaa leeg hase ahaatee bulshada caalamka waxaanu ka dalbanaynay inay gartaan oo ay ka garaabaan doonista shacabka ee Somaliland ee ay ku rabaan madaxbannaanida dawladooda taasna waxaa gartay oo riyadaasi run ka dhigay ra'iisul wasaaraha Israa'iil that everyone on this table will support the recognition of Somaliland. waxaan filayaa qof kasta oo miiskan fadhiya inuu arrintaasi qayb ka noqon doono gaar ahaan aqoonsiga Somaliland waad mahadsantiin dhammaantiin